noola qofkii helaa qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan durba garatay codkiisa iyo muuqiisa xasan gantaal mid ka mid a fanaaniinta ugu caansan uguna shacbiyada badan geyiga soomaalida samankan aan joogno liibaanankii qayb iyo qoysu helaa oo ciidii qalaafiyo qoraxay la dagaba kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka 5 daqiiqo ku bara taariikhda fanaanka maanta waxay noogu martiyay fanaanka weyn ee xasan gantaal hay noo dhamaystira magaciisa saddexan halkeesa ayuu ka soo raacay magacaan xasan gantaal magacayga saddexan waa xasan cabdi muuse bulshada ay u taqaano xasan gantaal magacaan anastii wuxuu soo raacay xilligii aan fanka ku soo bilaabay halkee ayuu ku dhashay xasan gantaal waxaan ku dhashay dalka Kenya goorma ayuu fanka ku soo biiray waxaan ku soo biiray 2015 bishii labaad xasan bal hayna xasuusiye heestii ugu horeeyay heesaha uu qaado heestii ugu horeysay waxay ahayd hees wadani oo dhaanta dhayalagu ma helo dheefta goobaanimo dhibta iyo rafaadkay ku soo dheelmataa dhankay u badan yihiin heesaha uu qaado xasan gantaal waxay isugu jiraan heesahaygu jacayl iyo wadani oo jacaylkana waan ka hadlaa bulshada oo waan madadaaladii ka mid tahay kuma weeliya waxaan sidoo kale soo bandhigaa wadaniyada heesaha ku saabsan dhul jacaylka ama wadaniyadu waxay tahay iyada qayb waxaa intaa ku eg daawadayaal barnaamijka 5 daqiiqo ku bara taariikhda fanaanka oo maanta marti nugu ah fanaanka weyn xasan gantaal hadaba daawad haddii aad nagu cusub tahay beejka shakra media flow soo dheh haddii hore ay nala joogto aad iyo aad u mahadsantahay nala wadaag qofka aad jeclaaleed inaan ku soo qaadano waqtigiisa kale waa shakra oo idin leh sida ay nabadgelyo dehbaanerayallaha daraarawad baan lahaa u dhiib noloshaan lahaa ka dhowr xumahaan lahaa ku dhoob ubax baan lahaa dad baa isku keen dhuftee miyaan kala dhow filayn